weligayba isma dhahayn Soomaali mulxidiina ama wax noocaas oo kale ah ayaad koonkan ku nool ama jiraba isma dhahayn mogta meeshaan soo galay runtii aniga faj'a ay ugu noqotay dad badan oo yani waliba noocyo kala duwan leh ilxaadka noocyadiisa kala duwan agnostic mid ah oo dhahaya anigu waxaan ahay rabbi ilaahay rabbi bas baa jira bay agnostic waxa wala adri mid oranaya meel laxan taagana ilaahay inuu jirana ma qari karo inuu jirana ma qari karo meel laxan taagana agnostic kaas weeye mid diisti ah oo rububi ah oo dhahaya anigu rabbi un baan aaminsanahay sharaa'ic oo dhanba ma aaminsani iyo mid atheisti ah oo isagu ilxaad mulxid ah oo ilaahay wujudkiisa inkaraya saddexdaba waan ku dhex arkay Soomaali saddexdaasba aaminsan qofku sideedaba muxuu diin uga baahan yahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقوري بودكاست iyo xalqad cusub galab wanaagsan waa magaalada Qaahira maanta waxa martiin oo ah Ustaad Maxamed Cabdulqaadir Wiish waxaanu jecelnahay in aanu ka dhageysano mowduuc qiim ah oo aad u mug weyn saameyntiisa gaarka ah leh Ustaadku maanta wuxuu noo soo gudbinayaa mowduuc cinwaankiisu yahay alladiidka iyo sababaha keenay muddooyinka dambe in Soomaalida ku dhex faafo dad ku soo dhawo gora podcast wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aadi aad baan ugu mahadcelinayaa Ustaad Cabdi Fataax oo barnaamijkan soo agaasimay iyo bahweynta gora podcast waan dhawa Ustaad mowduuc weyn oo saameyntiisa ama xiisihiisa gaarka leh ayaa maanta miiska noo saaran intaan mowduuca guda galin Ustaadii bal dadka isbar waa walaalkiin Maxamed Cabdulqaadir Axmed magaca caa'ilada ama magaca qoyska Wiish haddaan si yaro kooban isku qeexo anigu waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan ku soo barbaaray ku soo qaatay waxbarashadeedii heer dugsi hoose dhexe sare magaalada Gaalkacyo secondary iyo dugsiga hoose dhexe waxaan ku soo qaatay iskuulka ummadda secondary waxaan ku soo qaatay iskuulka Umar Center kadib waxaan sahankayga waxbarasho u aaday dalka Suudaan halkaas oo aan ka dhamaystirtay darajadii koowaad ee cilmiga ahayd bachelorta anigoo markaas ku takhasusay culumta dhaqaalaha siyaasadda iyo idaarada kulliyad saddexdaas ba isku xambaarsan bay ahayd takhasusku wuxuu ahaa idaara ayuu ahaa jaamacadda Afriqiya Alcaalamiya jaamacadda loo yaqaano Afriqiya Alcaalamiya kadibna hayeenkay waxbarasho waan sii waday waxaan imid dalkan Masar sanadkii 2017 halkaas waan ka sii bilaabay darajadii labaad ee master degree-ga anoo ku diyaariyay kulliyadda dhaqaalaha dhankaas waa dhinaca academiga weeye dhinaca cilmiga sharciga ah waligayba anigu waxaan soo ahaa ardaydii xalaqaadka cilmiga ah oo masaajidda wax kusoo baran jirtay Gaalkacyo masaajideeda ayaan wax kusoo bartay masaajidka Macmuur Mubaarak Alhuda masaajidda waaweyn jaamaca ayaan kusoo bartay rag waaweyn oo culamo ah wada qaybna nool yihiin qaybna ay dhinteen waxaan ka soo qaatay ragga dhintay waxaa ka mid ah ragga waaweynaa Sheekh Maxamuud Cali Wacays oo fiqiga ilaa safiina ilaa manhaj aan ka akhristay rag badan oo nool hadda waa jiraan Sheekh Saciid baa ka mid ah oo asaasiyaadka oo dhan baan ka soo akhristay Sheekh Cabdiraxmaan Muslim baa ka mid ah oo inuu akhriyay kutub badan dhinaca caqiidada xadiiska fiqiga marka asaasiyaadkii oo dhan waxaan ku soo qaatay xalaqaadka cilmiga ah kadib waxaan markaan u soo hayaamay Suudaanna ma joojin xalaqaadkii cilmiga ahayd xaggaas ayaan ka sii watay culamo badan baan xaggaa kula kulmay aan wax ka soo bartay laftirkooda waxaa ka mid ahaa Cisaan Bashiir baa ka mid ah tafsiirkiisa qaybo badan oo ka mid aan ka soo qaatay
bartaan hadda aan joogo masarana waan wadaa oo jaamacadda ashar waxaan ka wadaa mise jaamaca ashar ayaan culum badan ka qaataa oo dhanka culumta sharciga ah taasna waa dhinaca mataqaanaa khalfiyaadkaygii culumta sharciga. ustaad aad baa mahadsan mar soo dhawow alla diidka ama ilhaadka iyo soomaalida asbaabaha keenay inuu muddooyinka dambe ku dhex faafo amaba la arko iyadoo la hadalhayo intaanan ama aynan mawduucaba gudagelin su-aal yaroo hordhac ah baan isleeyahay ustaadka weydii waxa weeye su-aashaasi in maanta mawduuc noocaas oo kale laga hadlo munaasib ma tahay ma las dhihi karaa mawduucaasi ma weynaa oo in lagu soo qaato barnaamijyo iclaamiya oo kale ama la hadalhayo ama laga sheekeeyo. su-aasha koowaad yani muhiimadda u leedahay waa maxay in bulshada loo soo gudbiyo maadda iclaamiya sharaxaysa ama ka hadlaysa mawduucaas kow. su-aal labaad baa hoos taalla su-aashaas oo waxay iyaduna oranaysaa ustaad wiish ama maxamed cabdulqaadir wiish isaga laftarkiisa ahmiyadda u leedahay in mawduucan aynu ka sheekeyno maanta ama aan adiga ku xulanno oo weliba dee dhowr jeer aan aragna adoo ka sheekeynaya ka hadlaya doodiisa soo gudbinaya ha noqoto qoraal ha noqoto inagu meelahan gaarka isku aragno. ahmiyadda gaarka adig kuu leeyahay waa maxay in laga hadlo waa maxay sababta ahmiyadda kale ee guud ee bulshada u leeyahay in mawduuc noocan oo kale loo soo gudbiyo. cabditax aad baa u mahadsan tahay runtii waa su-aalo aad u muhiim ah. laba su-aalood oo runtii issaaran weeye. su-aasha koowaad haddaan ku hormaro ahmiyadda mawduucani hadda macnaha uu leeyahay iyo sababta keentay inaan hadda ka hadalno maxay tahay. 3 sababood baan u celin karaa ahmiyadda mawduuca. sababta koowaad waxaa weeye soomaalida waxay tiraahdaa dab aan kuleelkiisa la arag lagama leexdo. waxa weeye waa dhimbil dambas dusha ka saaran yahay oo ilaa haddana aadhe aan loo dareensanayn dad badanna aysan ogeyn. marka waxaan rabnaa dadka aan wax fahansanayn inaan dareensiino mawduucani inuu yahay mawduuc waaqici ah oo jira oo bulshada dhexdeeda ka jira. dad badanoo waxaa jira laga yaabo inaysan fahansanayn waxaan wuxuu yahay mararka qaar arka dad afkaaro la yaab leh ka hadlaya aan garanayn dadkaasi waxay yihiin iyo meelay ka socdaan iyo meelay ka yimaadeen. marka inaynu dadka fahansiino aynun aragga dadka kusoo jeedino inuu jiro mawduucan ilxaadku dalkeenna iyo shabaabkeenna dhallinyaradeenna dhexdooda. taas waa qodob koowaad. oo waxaad ku arkaysaa baraha bulshada ayaad ku arkaysaa iyadoo afkaariisa lagu falanqeynayo si toos oo qeexan ama si dadban oo sun malab la geliyey ah. yani dadka qaybo ka mid waxay sameeyaan waxba inta la macaanayaba hoos fikirkii ilxaadiga ahaa baa lagu dhexgelinaya mana dareemaysid. marka si yar baa qofkii diintiisii iyo ilaahiisii looga fogeynaya dadkuna marka ma fahmi karaan. marka arrimaha noocaas oo kale inaynu daaha ka faydno aynu sheegno waxa noocaas inay jiraan tooshkan aynu ku ifino. taas waa qodobka koowaad. wax weyn ma ay noqon macnaha daahiro ma dhihi karno laakiinse waa wax waaqic oo hadda jira wey oo bulshadan hadda ka dhex jira weliba xiliyadan hadda dambe qarnigan 19aad waxaan ka hadlayaa qarnigan 21aad la arkay awal hore looma arki jirin Soomaalida dhexdeeda ama naadir bay ahayd laakiin hadda xoogaa waxaad moodaa inuu wujuud xoogaa u leeyahay. taas waa qodob. tan kale waxay tahay diinteena islaamka oo ama bidcadan haysano oo bidco awood badan oo maanta ciidanka qaranayna aysan jirinin wax kasta oo yimaadana ee jawaabo u haysa oo ka jawaabi karta wax kastaba. yani diinta islaamku shubha kasta oo la keeno ama bushis kasta oo la keeno waxay diyaar u tahay inay ka jawaabto. marka saa darteed awoodda ay leedahay bidcadan haysano taana waxay keenaysaa laftirkeedu inaynu mawduuca noocan oo kale aynu ka hadli karno ku dhiirin karno. qodobka kale oo saddexaad waxaa weeye waxay dhahaan ka hortagga ka wanaagsan iska difaacidda. yani waxa in laga hortago waxay ka wanaagsan maxay in la iska difaaco markay kugu dhacan kadib inaad dawar haysatid inaad marka horeba ka hortagtid.
marka bulshada wacyigeeda inaynu dhisno marka hore aynu u sheegno afkaaraha noocaas inay jiraan, asbaabaha keenay iyo sida loo cilaajin karo, si marka arrimaha noocaas oo kale ah xil la iskaga saaro golayaasha kala duwan oo dhan, ama dhan bulsho ha noqoto ama dhan dowlad ha noqoto ama dhinac kasta ha noqoto. waa sababaha aan is oran karo ahmiyadda mawduuca uu iska leeyahay way ku qotamaan. haddii aniga shakhsiyan, adiga maxay tahay ahmiyadda mawduucan kuu leeyahay? aniga mawduucan ahmiyadda uu ii leeyahay waxay tahay hadda ka hor baan anigoo waxaan isticmaali jiray aaladan la dhaho club house-ka baan soo galgali jiray. waxaan umanayaa sanad 2021 meelahaas ahayd. marka weligayba isma dhahayn Soomaali mulxidiina ama wax noocaas oo kale ayaad koonkan ku nool ama jiraba isma dhahayn mogta. meeshaan soo galay runtii aniga faj'a ay ugu noqotay dad badan oo yani waliba noocyo kala duwan leh, ilxaadka noocyadiisa kala duwan, agnostic mid ah oo dhahaya anigu waxaan ahay rabbi ilaahay, rabbi bas baa jira. agnostic waxa waa laa adri, mid oranaya meel dhaxan taagana ilaahay inuu jirana ma qari karo, inuu jirana ma qari karo, meel dhaxan taagana agnostic kaas weeye. mid diisti ah oo rububi ah oo dhahaya anigu rabbi un baan aaminsanahay, sharaa'ic oo dhan ba ma aaminsani. iyo mid atheisti ah oo isagu ilxaad mulxid ah oo ilaahay wujudkiisa inkaraya. saddexdaba waan ku dhex arkay Soomaali, saddexdaasba aaminsan. markaas ayay igu dhalatay fikradda ah mawduucan inaan daraaseeyo, maadaama uu yahay ama ay tahay khatar ku soo wajahan bulshadeena Soomaaliyeed. daraasadeedii runtii muddo badan bay qaadatay, wax badanna waa ka qoray. waxaan bilaabay markaa inaan wax ka qoro, qoraal ahaan iyo hadal ahaan. Club House laftigiisa waan ka hadli jiray, doodaan ka galay in badan. mar waxaan garanayaa mar 4 mulxidiin meelahaas hal mar inaan dood looda galay, kanaan la galaa waa ka baxaa, kanaan la galaa waa ka baxaa, kan kalaan la galaa. 4 baa mar looda galaa, waa garanay wax xasuusta. Club House waxaa laga aqoon jiray magaca la dhaho iftiimiye. dadka kolley Club House isticmaali jiray garanayaan iftiimiye, magacaasaan ku hawlgali jiray anigoo tafaa'ul ayaga ahayd, macnaa dadka inaan diintooda u iftiimiyo. marka mawduucani aniga saameynta noocaas igu lahaa waxaana keenay markaan arkay daahiradan ama hawshaan hadda soo cusboonaanaysa ama bulshadeen rabta inay ku dhex faafto. markaan arkay markaasaan xil isa saaray oo waxaan is warniyo arrintaa xil iska saar, si kastoo bulshadaada waxa weeye aad uga badbaadin kartidna falankeeda gal, ama ha noqoto qaab cilaami ha noqoto, ama qaab qoraal ha noqoto, ama qaab kutub la qoray ha noqoto, oo isleena mustaqbalka xataa waxaan ka qoran insha Allah adulahay. okay, sidaad mahadsan tahay. waxaad tiri in qof mulxida jiro ma aaminsanin Soomaalida ku dhex jiro. nin baa jira hadda kahor kaa fogaayo, ninkaan dhalinyarada hadda Yurubtaas ku maqan yahay. wuxuu yidhi markii la dhaho qof markaan Masar nimi ahayd, markuu qof carabi i weydiiyey ma tukataa oo kale, waa ka xanaaqaa buu yidhi. ma aaminsanin qof Soomaaliya aan tukan yani marxaladaas u maraya sow ilxaadi waxaa laga yimi qof Soomaaliya aan tukan inuusan jirin buu aaminsanaa. marka hadduu maanta ogaan lahay qabaran inay mulxidiin jiraan, laga yaaba in og yahay. intaas wuxuu ahayd mudaakhalo yar. ustaadiyow ilaa intee horta aynu ilxaadka hordhac u samayno, intaynan mawduuca Soomaalida iyo xaggee inooga yimi, sababaha sidee loo daaweyn karaa, bal si guud maraan akhrinayay ilxaadka wax ku saabsan, waxaan muujinaa isheedana ku dhacday, u malaynaa inay isheedu ku dhacday erey ah ilxaadku wuxuu wadamada carabta ku soo batay thawraadkii carabta kadib, oo markii ay duqaadii isku dheerariyeen bay dhalinyarada qaarkood wax bilaabeen inay iyaguna isku dheerariyaan ilaahay subxaana wa tacaala. yani qoraal noocaas oo kale ma oran karo uu cilmiyeysan yahay, laakiin mudawina yar bay ahayd, baan tadwiina yar oo aan meel mudawina ka aqriyay. marka noocan waxaa la oran karaa xorriyaddii badneed ee wadamada carabta ka dhalatay. qaarkood guuxu waa jiray, laakiin xorriyaddii fara badneed ee wadamada carabta ka dilaacday baa kalifta dadku inay helaan manasooyin ay ku hadlaan, laakiin waa laga yaabaa guuxu inuu jiray oo ka horreeyey thawraadka carabta. bal si guud aynu alla diidka hordhac u samayno. horta alla diidka marka taariikhaan looga hadlayo
ragga qoraayada qayba ka mid waxay aaminsan yihiin inuu yahay product reer galbeed ama wax soo saar reer galbeed. Reer galbeedka ayuu ka bilowdaa kuna dhammaadaa. ragga aaminsan waxaa ka mid ah Cumar Shariif baa ka mid ah kitaabkiisa la dhaho Wahmul Ilhaad ayuu ku qaadaa dhigayaa. Sababtu waxay tahay reer galbeedka raggoodii hore ama muthaqafiintoodii hore aqoonyahankoodii hore waxay ahaayeen Yoonaan. marka taariikhda marka la daraasaynayo oo qoran taariikhna waa taariikh qoran taariikhda qoran waxaa la dhahaa waxaa loo celiyaa waxaa la dhahaa waxay ilaa 6,000 sano baa waxa qoran jireen baa la dhahaa 6,000 sano. marka taariikhdaas qoran marka la fiiriyo waxaa leeyahay qornaa mulxidiintii ugu horreeyay waxay ka soo muuqdeen ama ka soo ifbaxeen dowladdii la oran jiray Yoonaan Greek Ingiriisiga yiraahdo ama Greek la dhaho Ingiriisiga lagu dhaho. ninkii ugu horreeyay waxaa la oran jiray Theodoros baa la oran jiray Theodoros wuxuu ka hor yimid aalihadii ilaahyo badan bay aaminsanaayeen Yoonaantu. asagoo taariikh ahaan wuxuu ahaa taariikhdan sheegno wuxuu ahaa 300 iyo taariikhda marka qabla almiilaad ay tahay waxaa loo akhriyaa gadaal waa descending way ama waa cad tanaasuli gadaal baa loo akhriyaa. masalan ba 340 iyo 250 waxaa anaga noo soo dhow 250. marka taariikh ahaan waxaa la dhahaa ninkaasi wuxuu ahaa 250 ilaa 340 buu ahaa Theodoros. ninkaas marka wuxuu ka hor yimid ilaahiyadii tirada badnaa oo Yoonaanku ay aaminsanaayeen. markaana raggii xukaamta ahaa baa markaa ku kacay waxaa la isku dayay xataa mar in la dilo wax noocaas oo kale ah. laakiinse laftirkiisu wuxuu ku lahaa dowladda qayb buu ku lahaa rag mataqaanaa nufuud leh ama awood influence iskale ayuu dowladda ku lahaa saas ku badbaaday. horta ninkaas waa mulxidka ugu horreeyay oo yacni ilaah waxaa la dhahaa inuu jiro diiday. asaga waxaa arday u ahaa Ibaqros yacni asagu ma diidin ilaahay jiritaankiisa laakiinse wuxuu diiday ilaahay subxaana wa tacaala yacni ilaahay inuusan caalamka intuu abuuray inuu ka tegay macnaha inuusan caalamka wax tadakhula ku lahayn ayuu aaminsanaa. falsafada la dhaho alfalsafa alibaqoriya oo ladada iyo waxaas ka hadasha falsafadaas ninka asaasay ibaqor marka waxay dhahaan fulay buu ahaa asagu ma qaran karin saa darteed buu wuxuu yidhi ilaahay wuu jiraa laakiinse koonka intuu abuuro iskaga tegay. ninkii kale oo asna ragga ugu horreeya awaailka ka mid ahaa wuxuu ahaa Democritus markuu Karl Marx ka hadlaya wuxuu dhahaa wuxuu ahaa mawsuucigii ugu horreeyay Greek ayuu ahaa. macnaha qof mawsuuc waxaa la dhahaa qof culumtoo dhan bahe koobay. marka ninka noocaasa Democritus asalkiisu wuxuu ka mid ahaa ragga mulxidiinta ugu horreeyay awaaisha ayuu ka mid ahaa Yoonaan. بعدين waxaa soo baxay raggii mu'allihada ahaa oo ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisa rumaysnaa sida Socrates oo kale. Socrates asagoo wuxuu aaminsanaa inuu jiro hal ilaah bas. qoladan ilaahay bay inkareen asna muxuu sugay wuxuu yidhi ilaahiyada tirada badnaa ma jiraan maxaa jira hal ilaah bas baa jira. marka Socrates xataa waa la isku haystaa muxuu ahaa ma nabi buu ahaa ma wuxuu ahaa qof mataqaanaa halyeey oo mataqaanaa filosof miyuu ku ekaa mise nabi buu gaarsiisnaa waa dooda jira wey. Yoonaantaas qadiimka bay marka ka bilaabatay ama Greega hore bay ka bilaabatay. Greeguna dee dabcan waa Yurub wey. saa darteed buu wuxuu u leeyahay waa wax soo saar reer galbeed. markaan usoo daadegno islaamka oo kale taariikhda islaamka markaan soo daadegno ninka la oran jiray waxaa la dhahaa qof ugu horreeya xoogaa afkaara noocaas oo kale ilxaadi ah ka hadla. ilxaadku horta wuu guda weyn yahay wuuna ballaaran yahay. mararka qaar ilxaad waxaa la dhahaa waxyaalo qofku hadduu aaminsan yahay diinta lidig yani diinta looga baxo kale masalan nebinimadu ma jirto kale aaminsan yahay qofkani waa nooc ilxaadka ka mid ah. yani rabbi kaliya jira nebinimo ma jirto diin ma jirto kale aaminsan yahay. okay macnahan laftirkiisa mustalaxan ilxaadku wuu soo tatawura. waagi hore waxaa loo isticmaali jiray qofkii diida wax diinta daruuriyaadkeeda ka mid ah diidaa loo isticmaali jiray marka laga tago ragga hore Yoonaankan soo sheegnay. islaamka dhexdiisa oo kale qofkii diida wax diinta islaamka daruuri ah oo haddii laga tago laga baxay oo kale diinta islaamka qofkaas mulxid bay oran jireen. marka ninka la oran jiray Cabdullaahi ibn al-Muqaffac baa la dhahaa mulxidkii ugu horreeyay ah
marka dowlad islaamiya laga hadlayo wuxuu ahaa taariikh ahaan meelahaas 160 wax saas u ah 160 ilaa 142 meelahaas intaas u noolaa marka cabdullahi ibn muqaffac waa ninkii iska kitaab badan buu soo tarjumay farisi wasoo wasalkiisa ahaa kitaabo badan buu soo tarjumay kaliila wadumna kamida kitaabtu markuu soo tarjumay muqaddamaadkii uu u sameynayay waxaa lagu arkay waxyaalo kamid oo markaas diinta islaamka ka soo horjeeda sida inuu leeyahay diimihii baan tabaaray baan diin saxba waa wax noocaas oo kale ah qoraal noocaas oo kale laga keenay marka waxay dhahaan mulxidkii ugu horeeyay laakiin rag badan oo mutaakhiriin oo difaacaya jiro oo dhahaya waxaas wax ka jira ma jiraan cabdullahi ibn muqaffacna nin mu'min oo ahaa waana iftira lagu iftirooday ama been abuur weeyaan sida lagu iftirooday abulcalaa almacari marka dood baa ka taagan ninkaasi ninkii ugu horeeyay ahaa mise ma aha laakiin dad baa ku sheegay inuu ahaa mulxid kuwana way difaacaan waxay dhaheen mulxid ma ahay ka soo soco waxaa sidoo kale ayadana mulxidnimadaas ama zandaqa xilligaa la oran jiray ereygaas lagu tilmaamay dabiibkii ama dhakhtarkii weynaa la oran jiray abubakr araazi abubakr araazi waa ninkii mawsuuciga kitaabka alxaawi litib iskale weeye oo dee reer galbeedku in badan ay ictimaadi jireen ilaa qarni 16aad dhanka caafimaadkan in looga dambeeyo wey asaga ibn sina ayaad garanaysa abubakr araazi waa lagu tuhmay laftirkiisa inuu mulxid ahaa laakiinse wax nasa oo loo hayo ama daliil loo hayo ma jiraan arrintaas waxay u badan tahay inay ragga waaweyn oo qorayaasha waxay leeyihiin arrin ay abuurteen mustashriqiintu oo nimanka mustashriqiintu waxaa weeye nimanka dee islaamka ta soo dhex galay sharqiga intay yimid bartay ka dhex kalumaystay nimankaasa marka waxyaalo oo kutub been oo isagu uusa alifin oo nisbadeeda aysan sugnayn wax noocaas inta u isbayaan bay waxay dhaheen ninkaas mulxid buu ahaa laakiin sida caadiga ah si shakhsiyaadka waaweyn islaamka ay uga qaataan oo dhahaan islaamku ma walaba dee mataqaana xadaarad ma leh laakiin sida aimadu intooda badan culimadu ay isku waafaqsan yihiin ama intooda badan ay u badan yihiin abubakr araazi asagoo ma ahayn mulxid ma ahayn waxaa lahaa arrintaasi waxay ahayd arrin oo nimankan mustashriqiinta ay faafiyeen caadiyan marka laga hadlayo qof xoogaa la oran karo sindiiq buu ahaa toos ah wuxuu ahaa ninka la oran jiray ibnu raawandi asalkiisu wuxuu ahaa muctazili buu ahaa muctazilada raggii difaaci jiray oo ahaa mataqaana mutakalimiinta ayuu ahaa kadibna muctaziladii uu ka baxay shiici buu haddana noqday muctazilada xataa kitaab baa jira uu ku radinayo la dhaho fadiixatu lmuctazila ninkaas markii dambe wuxuu noqday zindiiq ayuu noqday zindiiq buu noqday muxuu diidanaa ilahay jiritaankiisu diidanaa muxuu diidanaa waxaa la dhahaa raawandi isagu ilahay jiritaankiisa ma diidanayn laakiinse wuxuu diidanaa maxay nebi maxamed nebinimadiisuu diidanaa oo ma aaminsanayn ilaahay baa qof bini aadana soo diri kara oo toos uula hadli kara wax noocaas ma aaminsanayn marka ibnu raawandi isaguna ninka noocaas ayuu ahaa waxaa la dhahaa raggii ugu horreeyo zanaadiqada ayuu ahaa mulxid mustalaxa guud oo mulxidka midna waa mid gaara midna waa mid caama moogta mustalaxa caamka uu soo gudagelaya marka oo cid kastoo diinta waxa daruuri ah diida waa iska mulxid laakiin mustalaxa khaaska waa u imaan doonaa taas marka waa fadradii islaamka weeye aan usoo dhaadhacno casrigii dhexe reer yurub waxaa loo yaqaano alquruun alwusta marka alquruun alwusta xilligaa iyada waxaa carada haysatay kaniisadda katholiga baa carada xoog ku haysatay diintu waxay lahayd awood dadka ay ku muquuniso waxyaalo badan oo khuraafaad oo aaminsanayna way jireen in laga daba hadlana maysan ogolayn masalan ba haddaan tusaale ahaan kuu soo qaato waxyaalaha ay aaminsanayeen waxaa ka mid a dhulku inuu yahay markasul kown meesha macnaha kownku ku wareego dhulka lagu wareegaa meerayaasha dhan waxay ku wareegaan xataa qoraxda waxay ku wareegtaa maxay dhulkay ku wareegtaa saasay aaminsanayeen waxay kaloo yara aaminsanaayeen oo ka mid ahaa in taariikhdu ama historygu uu wakti bilowday waktina uu dhammaanayo waxay aaminsanayeen taarikhdu inay bilaabatay 4004 nabi laahi ciise ka hor ayna dhammaanayso 4004 nabi ciise kadib say nabi laahi ciise uga dhigaan central of taariikhda kala bartankeedii shakhsi joogo markaas xaggaas uu ku yeesho maxay muunad iyo maamuus taariikhdu 4004 bay bilaabatay ciise ka hor 4004na waa bilaabaysaa waa 4004na way dhammaanaysaa marka ciise muxuu yahay udub dhexaadka taariikhda fikradaha noocaasa marka cilmiyan baa waxaa loo soo inay khalad yihiin
oo Copernicus oo kale wuxuu sugay in dhulku uu ku wareegay qoraxda oo qoraxdu ay tahay maxay centerka kownka iyadoo ay tahay okay solar system macnaha qoraxdu waxay iska leedahay manduumadan meerayaashan oo dhan galaxies-ka kulli starska dhammaan waxay ku wareegaan qoraxda marka maxay tahay centerka kownka ah Copernicus saas waa asagu sugay cilmiyan ahaan buu u sugay marka waa la cadaadiyey way dagaal bay kala hor imaadeen kadibna ninka la oran jiray Galileo baa asna wuxuu telescope asagu qaab oo cilmi iyo xisaabaad wuxuu isticmaalay ninkii Copernicus laakiin Galileo asagu wuxuu isticmaalay telescope caadiya buu isticmaalay oo de culumta markaas waxay ku socotay moogtaa tatwiir bay ku socotay hadba marna aalad baa la haysan marna lama haysan marka aaladda telescope-ka wuxuu ku sugay in dhulku uu ku wareegay qoraxda Galileo marka way xireen xabsi guri bay ka dhigeen afkaartiisa oo dhan way diideen mataqaanaa in la nashriyo cadaadis badan baa la saara macnaha annaga waxaan dhahnaa bas baa soconaya wax kale ma soconayaan marka caburintaas aqoon-yahankii la caburinayo afkaartooda la caburinayo wax kastoo mataqaanaa kaniisadda ka soo horjeeda ay yihiin harataqo ama gaalnimo iyo kufri ay yihiin arrintaasi waxay keentay in la inqilaabo kaniisadda laftirkeeda lagu kaco xilligaas marka waa xilligii la oran jiray enlightenmentiga wixii loo bilaabanayo ama casru tanwiir casriga la dhaho 1700 meelaha 89 wax saas u bilowday dowr Faransiya xilligaas way bilaabanaysa 1789 dowr Faransiya way dhacday marka waa lagu kacay kaniisadii iyo wax allaale wixii markaas ay idu wadato dhanba sidoo kale kaniisaddu cadaadiska saaraysay cadaadiska ku haysay bulshada dhanka culimada kaliya ma ahayn waxaan u maleynayaa inay iyadana jirtay inay bulshada baaran jirtay oo ay cadaadis adag dhanka bulshada laftirkeeda ku haysay oysan yani dooda taagneed inaysan mid cilmi kaliya ku salaysan aysan ahayn bulshada inay dhici jireen hantidaada iyo maamul xumo u horseedeen maamulka xataa hoos imaanaya may way jirtaa fasaad idaariya jiray asaguna iyo fasaad oo dhanka kaniisadda laftirkeeda waxay qaybin jireen wax la dhaho suquuqul qufraan dadka dunuubtooda aan dhaafnaa bay oran jireen busudkaas dadka la siin dambigiisa lagu dhaafaya ayaga waxay aaminsanayeen dadkii ilaahay inay u dhaxeeyaan oo ayaga loo sii marayo ilaahay loo sii marayo qofkii janna raba qofkii haw mataqaana ilaahay inuu ka raali noqdo raba ayagu in ay yihiin boondadii laga talaabiyey marka taas waxay keentay yani adoonsi baa la oran karaa yani fikriyan baa dadka loo adoonsaday waxaa loo adoonsaday siyaasiyan baa loo adoonsaday cilmiyan dhan kasta way adoonsaday hal mara marka waxaa dhacay infijaar waa lagu qaxa kadib markii infijaarkaas uu dhacay kaniisadii waxay wadatay waxaa la yiri waxba kama jiraan nimankii marka thawrada cilmiga xilliga bilowga ama u ahaa ama tirdhexaadka u ahaa ma ahayn kuwa ilaahay jiritaankiisa diidan ma ahayn sida raggii Isxaaq Newton oo kale Galileo oo kale raggaas ilaahay jiritaankiisa maysa diidaneen laakiin afkaartoodii maxaa iska hor yimid iyo afkaartii wadaadadan kiristaanka ahi kaniisadda baa iska hor timid marka afkaartan ay tan markay iska hor yimaadaan toodii marka waxaa la tuuray tii kaniisadda la tuuray marka iyada xaggaas marka isbedel ka bilowday ilaa markaas ay xaaladdu isbedesho cilmaaniyaddii markaas waxaa weeye la qaato oo la kala saaray diintii maxay diintii dowladdaha weli cilmaaniyadda laba kala ah oo marka dambe waxay Yurub qaadatay cilmaaniyaddu waa cilmaaniya juz'iyya iyo cilmaaniya shaamila juz'iyya waxaa weeye faslu diin can dawla diinta iyo dowladda bas in la kala saaro oo diintu ay ku ekaato masaajidda iyo dowrul cibaadaadka iyo meelahaas arrimaha bulshada aan faraha la galin arrimaha siyaasadda iyo waxsaas diinta faraha la galin laakiin ay ku ekaato masaajidda iyo macaabidda iyo meelahaas kadibna way ka tatawureen waxay qaateen waxa la dhaho cilmaaniyada guud oo ah diinta inaan doorba aysan nolosha ku lahaynba yani faslu diin can alxayaa diinta in laga saaraba nolosha oo dhan markaas bay waxay keeneen afkaartan liberaliga markaas bay keeneen oo ayagu ay qeexayaan xorriyaddii ayagu ay qeexayaan musaawaad maxaa la dhahaa sinaan maxaa la dhahaa xorriyad maxaa la dhahaa cadaalad maxaa la dhahaa ay la imaanayaan marka ayaga terminalis ayagu ay wataan ama qeexitaano wax kastaba oo diinta hore u qeexday ayaguna ay dib
mustalaxaad cusub ugu samaynayaan ayagoo xorriyaddii markaas saqfi bay iska lahayd ama xorriyaddu waxay lahayd meel yani u dambaysa iska lahayd aan la dhaafi karin xorriyaddii way fureen mataqaana waxay dhaheen dadku waa xor qof wuxuu doono samayn karaa marka waxaa soo baxay marka barnaamijyadan nisawiyada LGTB-ga waxaas oo dhan baa markaas ooday jabsata marka noqdo yar waxaan xagga rabaa inaan baraarujiyo isku hor imaadkii kaniisadda iyo diinta muxuu ku salaysnaa marka aan yani qaab cilmiyana u taxliilino kiniisadda iyo bulshada kaniisadii waxaan ka hadlayaa iyo culummada ahaa sorry isku hor imaadkii kaniisadda iyo culummada muxuu basic u ahaa kaniisadda ama diin marka laga hadlayo diinta horta maxaa asaas u ah saddexda qodob diinta asaaska u ah iyo cilmigu ma iska hor imaanaya saddexda qodob diinta asaaska u ah waxaa weeye kow inuu ilaah jiro labo in ay jirto khudo ama balaan degsan oo adduunkan laga leeyahay ilahay qorshu adduunkan ka leeyahay qaaya waxay dhahaan ama balaan ilahay subxana wa tacaala adduunkan asaga abuuray qorshe iyo wuxuu abuuray balaan buu abuuray iyo tasaddexaad oo ah nidaam akhlaaqeed oo dadku ay dhexdooda ay iskula tacaamulaan ku wada xiriiraan saddexdaas arrimood marka cilmiga loo bandhigo mid uu ka hor imaanaya male cilmigu ilahay jiritaankiisa mana yani inuu saaciido jiritaankiisa ma ahay ma diidi karo taas waa qodob waa markaan kuleeyahay inuu saaciido ilahay jiritaankiisa wuu saacidaya wuxuu u saacidayaa markii dambe waxaa la ogaaday dee arrinta ah koonku inuu iska leeyahay bidaayo meel uu ka bilowdo oo nadariyadda wada soo baxday la oran jiray big bang nadariyada big bang waxay caddaynaysaa koonku inuu bilowday 13 bilyan oo sano ka hor inuu bilowday iyo xoogaa marka maadaama koonku bilow iska leeyahay xaggaa maxaa ka cad marka yaa bilaabay imaanaysa su-aashaas marka imaanaysa marka waxay gooldhigba u tahayba burhaankii la oran jiray burhaanka ay dhahaan marka culamadu markay ka hadlayaan culamadan ilahay jiritaankiisa daliilinaya burhaan ulkowni ama burhaankan burhaan ulxadath ilaahay subxaana wa tacaala koonku wuxuu iska leeyahay bidaayo wax kastoo bilow iska lena waxaa laga maarmaan cid bilowday inay jirto haddaba maxaa meesha ka dhalanaya ya koonka in la bilaabay o ilahay bilaabay koonka hee in ilaahay bilaabay marka cilmigu ma saaciiday ilaahay jiritaankiisa mise ma saaciidin cilmigu ilahay jiritaankiisa wuu saacidaya bilowgu iska leeyahay wax kastoo bilow leh cid bilowda inay jirtaa koonka waa la bilaabay ilahay bilowda khalaas marka waa arrin saacidaysa maxay koonkii marka koonka ilahay cilmiga iyo ilahay jiritaankiisa horta wax iska hor imaanaya marnaba he ma aha bale cilmigu wuxuu saacidaya ilahay jiritaankiisa taas waa qodob arrintan kaloo ah koonku inuu iska leeyahay qaayo ama hadaf ama balaan ilahay u dejiyay subxana wa tacaala arrintaasna cilmigu asagu horta cilmigu waxaa la dhahaa marka laga hadlayo cilmigu kayfa see waxaana yihiin buu ka hadlaa ee limaada inta badan kama hadlo kama jawaabi karo cilmigu limaada inta badan he sabab kama jawaabi kara sidee buu ka jawaabi karaa cilmigu oo markaan kuleeyahay koonkan sababta loo abuuray maxay tahay sababta loo abuuray sabab haddaan weydiino culamada cilmiga sababta koonkan loo abuuray ama hadafkaad noloshaan maxay tahay qaayadeedu maxay tahay macnahaad u nooshahay maxay tahay haddaan culamada sayniska maanta weydiino kama jawaabi karaan marka maadaama uusan jawaab u haynin marka labay noqdaan qolana way inkaraan waxay dhahaan koon qaaya waa iska wale qolana waxay dhahaan iyo qaayo uu iska leeyahay lekse waxaa garanaya culummada diinta iyo falsafada bas baa garanaya anuu shughul kuma lihin soo garanaysa marka arrinta kale oo qaayada anaga cilmiguna iska hor imaanaya arrinta kale oo ah koonku ilaahay subxana wa tacala markuu abuurayay inuu nidaam akhlaaqi ah soo raaciyey system iyo mabaadi akhlaaqeed inuu koonku ilaahay u sameeyey oo dadku ku tacaamulaan arrintaasna cilmigu waxaa weeye akhlaaqda iyo systemkaasi kama hadli karo falsafad bas ka hadasha iyo diinta ka hadasha haddaba saddexdii asaaska u diinta u ahaa iyo cilmigu maadaama isa isku hor imaanin maxaa iska hor keenay culummada iyo culummada diinta iyo culummada sayniska maxaa iska hor keenay waxay iska hor keenay waxay tahay tafsiiraadkii khaldanaa oo ay diinta ku soo dareen iyo khuraafaadka diinta ay ku soo dareen culimada kaniisadu aanu soo sheegnay hadda taasaa keentay inay iska hor imaadaan isku horimaadkaasaa marka dhacay hawsh saasi marka u furantay kadib ilaa ay ka yimaadaan rag faylasuufiya hataa ilahay jiritaankiisa dhahay ilahay anagaa dilnayba sida nitshe oo kale mawtuli ilah kitaabay dhahan bu alif ilaahay waa dhinta wa naxnu qatalna annagana dilnay
soo ma garanaysa raggaasaa marka soo baxay saasay marka ku socotay afkaartu heer hadda yacni faafitaankii ilxaadku hadda uu waa mataqaanaa awood zaa'id yeeshay oo maxaafisha cilmiga oo dhanba hadda mulaaxido badan ay soo baxeen oo dhinaca aqoonna ku hubaysan ilxaadkana faafinaya biology asagoo ah ilxaadka faafinaya asagoo mataqaanaa chemistry oo ilxaadka faafinaya rag noocaas oo aqoontina leh ilxaadkana faafinaya baa soo baxay innaga su-aasha muhiimka waxa weeye laga yaaba in xataa dadka daawanaya maskaxdooda ku jirto innaga xaggee inooga yimi jawigan aad ka sheekeynaysa ee abuuray ilxaadka iyo su-aalaha badan la isweydiinayo iyo dooda cilmiyeysan iyo culimmadii iyo wadaadadoodii isku dhacayaan dhankan kiristanka innaga muuqaal noocaasa ma la oran karaa wuu ka muuqdaa waaqiceen soomaaliyeed xaggee inooga yimi sabab nooceeya baa dhalisay horta markayna si guud horta diinta islaamka uga hadalno diinta islaamku waxay ku jirtaa diimaha booriya fikirka in la fikiro in wax la baaro qur-aanka ilahi wuxuu leeyahay subxana watacaala afalam yasiruu fi lard fayanduruu kayfa bada'a alkhalq dadku maysan soconin oo safiirin ilaahay siduu dhulka u abuuray ilaahay baa na faraya inaan soconno wax baarno dhulkii weliba koonkii aynu daraasa ku samayno marka diinta marka laga hadlayo diinteennu waa diimaha runtii dhinaca dhisitaanka caqliga dhisitaanka fikirka boorinta dadka lagu boorinayo afalaa tacqiluun afalaa tubsiruun ulil albaad bay u badantaa dadka in la caqligooda la kiciyo oo dadku ay fikiraan haddaan u nimaano marka dhanka culammada marka culammada ma jiraan kuwo xoogaa fikirkoodu jaamid yahay oo mararka qaar laga yaabo xataa cilmigii inay say u fikrayaan iska hor imaadaan dabcan way dhici kartaa laakiin asalkeenna diinta oo asalka ah ayadu marnaba iyo cilmigu iskuma hor imaanayaan leanna maxay diinta iyadoo cilmigan mataqaanaa in wax la barto oo wax la raadiyo oo la fikro iyadoo diinta dadku boorinaysa haddaan usoo dhacdo asbaabaha keenay ilxaadka oo shabaabkeena maanta ilxaadku ku faafo waxaan u celin karaa dhowr asbaabood sababkooda waxaa weeye horta dadkii oo ku fashilmay xaqiijinta ahdaaftooda yacni qofku markuu ku fashilmo inuu ahdaaftii uu nolosha ka lahaa xaqiijiyo taasi waxay ku keentaa inuu asagu laftirkiisu isdhaleelo naftiisa ka shakiyo in mataqaanaa markaas mujtamacii qaybo ka mid ay ka shakiyaan dhahaan thaqaafadan iyo dhaqankaana keenay fashilkan aan ku suganahay qaybo ka mid ah fashilka inay u celiyaan diinta inay u celiyaan dhahaan diinta waa fashilkan keentay marka shakhsi ahaanna fardi ahaanna waan u fashilanay xukuumad iyo nidaam ahaanna waan u fashilanay oo nidaamkii xukuumiga ahaa oo Soomaaliya markuu dhacay ilaa hadda wax oo naf leh lama hayo qofku markuu wuxuu gaarayaa marka xaalad iyo asigu gaarayaa qoos oo wuxuu isleeyahay marka wadamo Orobo uu tagayaa wuxuu leeyahay marka wadankan saas u dhimacaysan yahay waana diina ma haysan kan annagana islaamana saasan u cadaabana maxaa jira say wuxuu jira qofkaas marka waxaa fud siyar in lagu leexiyo qadka looga saaro marka fashilka gaar ahaaneed iyo midka guud ahaaneed oo dawladda oo ina haysta waxay ka mid tahay waxyaalaha sababay daahiradan ilxaadku inay faafto waxaa kaloo ka mid ah manaahijta daraasada manaahijta iskuullada lagu dhigo oo dhalinyarteena loo dhigo oo ka maran ama ay ku yar tahayba culumta caqliga ka shaqeysa ama caqliga dhista caqliga bani'aadamka dhista oo dadka ku booraysa inay fakaraan inay mataqaanaa wax isweydiiyaan culumtaas oo dhan way ka maqan tahay inta badan culumta mantiqa culumta cilmi kalaamka culumaha noocaas oo kale ah dadka caqligooda dhisa manaahijta daraasiga ah oo hadda dhalinyarteenu ay daraasayso kuma jiraan qofka marka caqligiisa haddaan la dhisinin la korinin hadhowda qof wuxuu noqonayaa difaaciisa u yaryahay shubhad kasta oo timaado yani waxaa fudud inay gaarto ama uu ku qancaba taasna waa mid oo manaahijteeniba aad wax daciif u ah oo mataqaanaa dhankaas aftirkeeda waxaa la oran karaa way naga soo gala waxaa kaloo iyadana sabab aan ka dhigi karaa asaasi ah culummadeeni oo awoodda saartay inay la hadlaan dareenka caatifada
waxooda ku soo koobay intooda badan waxay ku soo koobeen hawshoodii wacdi iyo qisooyin laga sheekeeyo dhankaas bes bay ku soo koobeen meeshii la rabay inay awoodda saaraan caqliga iyo fikirka in la dhiso dhalinyarada caqligoodii iyo fikirkoodii in la dhiso meeshii la rabay ayay ka gaabiyeen maxay awoodda saareen wacdi iyo qisas iyo wax noocaas oo inta badan ragga caanka aanu arkayno hadda soomaalida oo mashhuurka ah wax barnaamij manhajiya cilmiya mataqaanaa in la dhiso binaa alcaqli walfikri wax ka sheekeynaya qalama inaad ku aragtiyaad u yarta waa laga yaaba marka qaar inay galgalaan laakiinse wax si joogta ah arrintaas awoodda u saaraya way yarta inaad aragtid marka culammadii waxay awoodda saartay qisooyin iyo wacdi dhankaas dhinacii dhisitaankii fikirka iyo caqligana way ka gaabiyeen taalabtigeed waxaa la ohan karaa waa sabab ka mid a asbaabta waxyaalaha kale oo keeni kara waxaa ka mid ah diintii oo loo isticmaalay masaalix shaksiya dana gaara markaan kuleeyahay diinta dana gaara loo isticmaalay maxaan ka wadaa waxaad arkaysaa qof wadaad sheeganaya diintii ku qaraabanaya si khaldan ugu qaraabanaya masaajid la dhisay maanta oo dhan dad lacag laga aruursanayo oon dhammaanaynin hawla noocaas dabcan waad fahmi kartaa iyo xataa in la arkayo xataa intaa sadaqaad inta la aruuriyo dad lagu leeyahay sheekh ebel baa sadaqaad inta aruuriyay haddana wax lagu tuhmaya ama hadhowdii asagoo istifaac iyo oranaya waxaas ma qaadaniyo tuhunka xataa mataqaanaa laftirkiisa wax salanahay taas marka waxay keenaysaa haybaddii diinta inay hoos u dhacdo dadku haybaddii diinta iyo culummada ay u qayn hoos bay u dhacaysaa hadhowdiina waxaa salaanaysa in bartaa laga soo galo xataa marka qaar inaad arkaysa xataa wadaado oo laleeyahay waxbay dhaceen waxbay sameey wax noocaas wax lagu haysto lagu tumayo ama qaarkood laleeyahay waxay intay sheegeen iska hadleen been bay sheegeen laleeyahay dee wadaad been sheegaya haddii la arko dee ixtiraamkii diinta loo hayay ya ayaa hoos u dhacaya marka waxyaalaha noocaas oo kale ah diinta iyo masaalix shaksiya laga dhigtay waxay keenaysaa waxaad tiri khaladaadka ka dhacaya wadaadada baa waxaa lagu jaangoynayaa halbeega laga haysto dhanka diidda waxaa laga yaabaa tasarufaadkaas khaldan in loo nisbeeyo qofki uu celiyo diinta uu celiyo hadalkaaga waxay xoojinaysaa aragti inta badan isla dhexmar oo ah dhalinyarada u badan alla diidka iyo afkaartaas dhalinyarada inta badan qaadatay ama kaaga dhow waa dhalinyarada ku soo barbaaray xarakaadka islaamiga oo madaaris alislaamiya ka soo baxay tarbiyadooda wata ayaa markii banaanka usoo baxaan gaar ahaan laba dal suudaan iyo ood soo martay iyo masar oo aad maanta joogto marka qudsiyada aynu qofka rajul diinka ama qofka aynu u nisbeynayno inuu yahay dhanka diinta hormuud inuu yahay qudsiyada ama maqaamka aynu geynayno ama qudsiyada aynu siinayno baa marka hore waxay tahay mid aan qiyaas lahayn horta waa run oo dadku inta badan waxay isku khaldaan laba shay oo ah tadayunka iyo diinta atadayun waddiin waa laba shay oo kala duwan wey qofkan suu asagu u cibaadaysanayo diintii suu ula falgelayo iyo diintii waa kala laba iyo diinta labay kala yihiin cumar bin khadaab baan u malaynaya inuu ahaa nin baa wuxuu yidhi masalanba gabar baan rabaa qof wanaagsan inaan siiyo marka see ku garanka tilmaamo ii sheeg tilmaamo waxaa ka mid ahaa qofkaasi inuu la tacaamulka bini aadanka uu la tacaamulayo ay wanaagsan tahay la tacaamulkiisa marka waxaad arkaysaa qof diin leh ay ka muuqato mataqaanaa madharkii islaamka ka muuqdo garkii magaciisigii haddana tacaamulkiisa uu aad u qaabdanaya yani naxariis male dabacsanaan ma jirto hadalkiisa waa kulkullo yahay kibir baa ku jira isla weyni baa ku jirta ma garata weliba dadka ducafada ah oo mataqaana sida dumarka iyo caruurta iyo dadka si wuxuu ula dhaqmayaa aad u qaabdaran marka tacaamulka waxaas uu samaynayo qofka waa qaabku asagoo u dhaqmaya sooma dhaqankii noocaasa dadba waxay u celinayaan diinta u celin waxay dhahayaan maadaama wadaadkii saas u yiri diintana waa saas diinta faraysa macnaha laakiin ogow mararka qaarkood markii qofka la naqdiyo isaga laftirkiisaba meesha uu isdhigayo markii qofkaas la naqdiyo ama la dhaliilo ama tasarufkiisa wax laga sheego dhaqankiisa wax laga sheego isaga wuxuu isdhigayaa booskii diinta way fahantaa malaynaya isaga laftirkiisaba falcelintiisu waxay noqonaysaa waryaha
madiinta ka soo horjeedaa tusaale ahaan oo kale waxaa aada looga doodaa waxaa laga yaabaa dumarku inaysan xuquuq ku lahayn mararka qaarkood xuquuqdooda inta badan lagu tunto dhanka ragga ama bulshada dhexdeeda markii la damco miiska lasoo saaro in mawduuca laga doodo waxaa leeyahay dumarka xuquuqdooda ilaahay waa u dhamaystiray anu ilaahay kama hadlin dhamaystirkuu siiyey waxaan ka hadlayaa waaqaca marka ma moodaa qaabka yani inaga laftirkiina waa aragnay dhallinyarnimadeenii waxbaa naqdinaysaa waxbaa dhaliilaysaa waa lagu caburinaya qofkaas rajuldiinkaas meeshuu isdhigayo isbarada isku horgoynayo ama silaaxa uu kugu waajahayo ba waxay tahay huwa alxaq walaxaq huwa alxaq walaxaq yani isagiibaa xaqa ah isagana kaa saxsan ma ahan moogta inuu kaa saxan yahay keliya ma ahan xaqiina wuu u taagan yahay marka taas ba waxa laga yaabaa in qofkaas uu sii durko oo dhaho warnaga tag waxa weeye haddaad booskaa isdhigayso qofkaas unuusan macrifo fara badan lahayn maya horta waa runta xaqiiqatan wax jira weeye taqdiiska zaa'idka oo loo samaynayo dadka loo samaynayo wadaadada loo samaynayo qofkii la gaarsiinayo heer aan usan gefi karinba laa yukhti si fiican yani haddii la dhaleelana ay ka dhigan tahay diinta islaamka in la dhaleelay waa khalad hadda waad garanaysaa qisadii cumar bin khataab camar bin caas buu ahaa suuriyan ka khaldin cunugiisa markuu ninka wax yeelay oo hadhowda loo soo dacwooday oo layidhi qibtiga haa uu yidhi ka qisaaso ka argudo oo xanaaqay oo yidhi mataa istacbadtum annaas waqad waladathum ummahaatuhum axraara ina isagu wuxuu isku hadlaynaya wuxuu ina camar bin caas wiilkiisii baan ahay wuxuu doona u samaynaya marka arrinta noocaasa way jirtaa qofka haddii laga badbadiyo la buunbuuniyo wuxuu isgaarsiinayaa meel uusan position uusan lahayn buu isgaarsiinaya hadhowdana isagii baa qudsiya isiinaya nafsal arrintaas waxay ku dabaqmaysaa siyaasiyiintiin oo kale hadda soomaalida marka hadda fiirisid siyaasigu bulshada yani wuxuu u haystaa caruur suu doona ula hadlaa lianna maxaa yeelay wuxuu haystaa dad gar iyo gardaraba hee asaga wataa ma kala jecla marka wuxuu doono samaynaya wuxuu doono dhacaya wuxuu doono samaynaya hadhowna dad baa ku difaacaya wax kasta uu mataqaanaa sameeyo wax sax dad baa ku difaacaya dabtaasoo kale wadaadadii waxaad qaybo kamid waxaad arkaysaa in asagoo khalad samaynaya dad masalanba ku xadgudbaya dad caburinaya qof mataqaanaa abuse garaynaya in haddana uu asagu see saxsan yahay uusan hadli karin gaar ahaan dumarka oo kale iyo caruur dadka tabarta daran oo kale baa laga yaaba in cagsii saaro cid hadli kartana aysan jirin qofka noocaas oo kale marka oo cuqdada noocaas kusoo koray oo xaaladda noocaas oo cid uu u dacwoodo masaajkii haddii laga soo dacwooday baa xagee loo carreeya miyahay si fiican aad iyo aad ma garad aad iyo aad cid u dacwooda aysan jirin markuu masalan ba taga qofkaasi waddan reer galbeeda oo xor baa ta laleeyahay wax kastaba oo la dhegaysanayo waxa weeye isagoo caytamaya la maqlayo la dhegaysanayo awalna isagoo aan caytamayn oo baryotamaya baa la caburinayay markana isagoo caytamaya la dhegaysta ustaadii laba su-aalood baa maskaxdeeda ka guuxaya mid aan soo hormariyay innaga dhallinyaradeenna markaad social media fiiriso dabcan waad sheegtay waxaad tiri dood aad fara badan baan soo gali jiray xilligii club houseka waxaad moodaa inay in badan dheerti tahay ama ay rasan tahay dooda markii laga doodayo aysan waxba dhaamin doodaha kale qabiilka waxaa suuragal ah in aad aragto qof mulxid ah ama wax yar diinta diidan oo su-aalo fara badan qaba in lagu jawaabayo cay dadka caamada ah si khaldan ugu jawaabayaan cidda xataa aqoonta leh ninka qofka keliya isdhigi karo u jawaabi karaan uu leeyahay ilaahay kusoo hanuuniyo u duceynayo waa duco qofka in la dhaho ilaahay kusoo hanuuniyo waa wax aad u fiican laakiin meesha bugtay ma bogsanayso ma la is oran karaa innaga dhallinyaradeenna mawaadiicdaas ka agdhow ama fikirkaas qaatay xujada ay haystaan inta badan ma ahan xujo oo qota dheer xujo adag culus ma la is oran karaa horta xaqiiqatan arrintan ah sida loola tacaamulayo dadka ilxaadka qaatay horta aan halkaas sax wax yar marnaba xujo ay haystaan ma adkaan karto yani marnaba xujadooda waa daciif
qof dhahaya ilaah ma jiro ilaah nebi ma jiro qofka dhahaya marnaba xujadiisu xujo qawiya ma aha sida saxda micnaha halkaas yaro waadixiyo si aan loo fahmin inaan leeyahay qofkaas xujo adag ma haysta waxaan ka hadlayaa doodiisu ma cilmiyeysan tahay su-aasha taas ay tahay horta markaynu ka hadlayno ilxaadka oo kale rag marka la qaybinayo waxaa la dhahaa dhowr qaybood buuna noqdaa midna waa mid oo nadari ah midna waa mid camali ah midka camaliga maxaa weeye qofku inuu u dhaqmo kaanamaa inuusan ilaah jirin oo kale wuxuu doona sameeyo suu doona diin ma jirto ilaah ma jirto camal ahaanba wuxuu u samaynayaa laga yaabo xataa inuu ictiqaad ahaan u aaminsan yahay midna waxaa weeye waa mid oo nadari ah oo qofkii wuxuu diidan yahay ilaahay subxana wa tacala jiritaankiisa dadka marka ilxaadka nadariga qaadanaya asbaabo badan baa u geeya asbaabii baan wax kusii dardaraynaa oo si guud caama dadka qaybo ka mid a waxaa weeye waxay ka tahay khaalif tucraf macnaha khilaaf ha lagu aqoonsaday qof meel si jira ma aanba qofkani wuxuu isku arkaa qof iska daciifa oo iska maskiina caanabay dadku inta badan hadda raadiyaan waa la socota qofka marka si u caanbaxo loo wadwado social mediaha rag waaweyn oo mufakiriin ama magaciisa ay la doodoodaan shaksi caana u noqdo muxuu samaynayaa afkaaro marka diinta lid ku ah ama afkaaro ilxaadi wax noocaas ula imaanaya qofkaas marka qof meel sii jiraba maba aha ma intaa yar tahay oo mataqaana wuxuu ka rabay maxay inuu caan noqdo kuwo shubhaad baa ku furan oo ilxaad shubhaad baa la dhahaa shubhaad baa ku furan aan aad u adkayn una baahan in si dabacsan looga jawaabo kuwaas marka maxay la kulmaan inta badan waxaa laga yaabaa khitaabka diiniga marka la dhaho waxaa jira firqooyinka laftooda way sii kala duwan yihiin dad xoogaa mutashadida jira oo yara adag oo qofkii as leedahay waxay la rabaanba inay sii riixaan qofka asaga qofku inuu kusii fogaado sii gal udkhul naarta gal caadi ah qofkii marka uu in badan baan kala hooska aan ku arkay dad soo bandhigay dhahay war saasaan qabaa kanaan qabaa oo la fogeynayo group lead laga dhahayo mataqaana meeshuu yimaado leeyahay qofkan asagaa wax faafinayo noocma cabsi miyaan oran karaa ma tacaamul ma garanayo qofkan wax basidu iska wata wax saasa ma fahansana wuxuu u baahan yahay marka in loo waadixiyo loo kow loo saddex hadda kahor waxaa dhacday gabar baa hadda kahor anagoo meel ku jirna noo soo gashay qalab hoos ka ahayd su-aal waxay qabtay ku saabsan dhanka dhaxalka marka waxay masaladaas asi iga laaqan dee qur-aanku wuxuu leeyahay raggu laba meeloodoo meel bay qaadanayaan laba jibaar bay qaadanayaan raggu dumarkuna qayb bay qaadanayaan manaa raggii baa ka badan raggii baa laga badiy maxay tahay arrintaas marka dagaal baa lala galo xaleeyay tahay baa magaciisa wataa diintii ka soo horjeedaa kan waa la soo diray lacag baa la soo siiyey soo diray lacag baa la soo siiyey gabadhi markaan chance fiican kuma helin mar kalan chance kale ku hela waan u sharaxay marka masaladii waxaan ku iri diinta islaamka marka laga hadlayo asxaabul furuudka dadka dhaxalka qaadanayaba dumarka u badan dhaxalka dad qaatan imisa wey soo laba iyo toban maaha 8 baa dumar ah maxaa soo haray 4 dumarkaaba loo badiyeyba ma garat asbaabaha marka laga hadlayo dhaxalka lagu qaatana marka laga hadlayana hal sabab bas baa keenaya in ninka laba jibaar la siiyo oo markii masalanba wiil iyo gabar ay meesha joogaan bas markaasna mataqaan aabahood baa dhintay wiilka loo badanaya ilaa ilaa reerkii asaga ahe mas-uul ka noqonaya mar waxaa jira cadaalad iyo musaawa baa kala jira cadaaladda waxaa weeye in mataqaanaa masalan baa tusaalaan ku siinaya ilis hadda ilma 5 jira iyo ilma 10 jira isku masruuf ma qaadan karaan haddaan dhaho kan intaan lacagtan ku bixinayo baa kana ku bixinaya kan muxuu u baahan yahay riiska waxbana u baahan kana waxaa laga yaabaa iskuulkii magaciisa inuu u baahan yahay musaawad baan samaynaya isku imaan ku bixinaya haddaan dhaho way adkaanaysaa soo ma aad iyo laakiin cadaaladdu maxay tahay qof kastaba intuu mudan yahay in la siiyo marka ninkan asaga intuu mudnaa baa la siiyey laanna culays reerka dhan asaga qaaday gabadhii baa asaga laga rabaa dhaqaale laga rabaa mataqaana masruufkeeda hooyadii baa laga rabaa carruurta wixii oo dhan dusha inay soo uritaa laga rabaa saa darteed baa taklifadaas baa loogu kordhiyey laakiin meelaha kale haddaad fiirisid intaasoo masalo oo kale la helaya gabadha ahe dhaxal kaga sarreysa wixii baa marka u tusaaleeyey gabadhii kaanama iyadoo qanacsan ma garata way meesha ka tagta marka wax masalooyin iska basiida bay dadka iska wataan marka masalooyinkaas in loo waadixiyo ayay u baahan yihiin wuxuu maba adkaba marka dadkaas waa dad shubahaad ku jiraan waxaa kaloo jira dadka qaybo ka mid a ilxaadu naqsi baa jira waxay dhaha
dadka qaybo ka mid ah waxay dareemayaan in culummadu diintu ay xoogaa yara aysan diin bas yaqaanaan aqoonta maadiga looga horeeyo oo nusqaan dhanka diinta ay jirto. hadda sheekhaan la dhaho doctor camar shariif baa ka sheekeynaya, wuxuu yidhi nin baa ila soo xiriiray dood buu marka wuxuu la galay nin mulxida. dood markuu ninkan nin mulxida la galay, ninka mulxidka dhinac kasta laga soo xira. camar shariif waa nin dhakhtar wey, dhakhtarnimana waa bartay, diintana wuu garanaya, sayniskii iyo falsafa dhinac kasta la isla qaasaa, meel kasta waa laga soo xira. cunug yarkaa isla markii mulxid buu cunugii wahaa buu yidhi, doodii asagoon kala bar dhamaysan buu yidhi aaba shahaadada ii qabo, shahaadada ii qabo maxaa dhacay? suu ninka asaga waa dhegeysan jiray, wuxuu iskaga kaa dhigi jiray nin balaaya ka dhacday ma garad. culumadana wuxuu oran jiray ma yaqaanaan saynis, ma yaqaanaan mataqaanaa culumta kale, waa eber weeye ha dhegeysanin, waxaas uu oran jiray. asagii markii maanta la qabtayna yaa dee shimbir buu noqday, waxba waa sheegi waaye ma garad. marka tanmiiqa iyo qurxinta iyo sheeko berleydaas dad badan lagu qabsanaya ma garad. marka waxaa laga yaabaa nusqaan buu qofku markaa dareemay wuxuu leeyahay ama wax ka jiraan waxaan qofkan aqoon diin mid maadina waa haystaa diinna waa haystaa aqoon diintuna diintii wax ma garan diintii bas bay garanayaan maadiga ma garan wax noocaas oo kale ah. marka waxaynu u baahnaa culimada naftirkeedu inay dhanka maadigana ay awoodda saaraan, diinina labadaba la isku daro. waxaan u baahannahay ereygaas waan kasii soconaya. ma jirtaa dhalinyaro ama dad ducaad ah ama dad aqoon-yahan ah oo dhalinyaro u badan oo maantay mawduucan aad ka midaysantihiin idinku u qorshaysan tahay inay si cilmiyeysan u waajahaan afkaarta noocan oo kale ah? dhalinyaro badan oo waxaa jirta runtii dadaal shakhsi ahaaneed wada oo badan oo mataqaana aan yarayn, meelo badan oo kala duwan jooga baa jira, laakiinse ma jirto wax madallo ama mu'asaso ku midaysan oo taasoo macnaha isku dhaarsatay in hawshaa laga hortago ee qof kastaba gaarkiisa iyo dadaalka ugu jira. dhalinyaro badan oo reer Hargeysa jira, kuwa reer Muqdisho baa jira, kuwa reer Puntland, meelo badan oo kala duwan dadaal ka socda way jiraan. laakiin xiriir waxaa leedihiin xiriir guud korka la iska warqabaa, laakiin isku xirnaan oo arrintaas qaab mu'asasi ah system iyo nidaam yani ama urur may urur ahaan kama hadlay, laakiin hataa inaad iska war haysaan oo aad yani ku wada baraarugsan tihiin mawduucan inuu yahay khatar soo socota oo way jirtaa. taas way jirtaa, dhalinyaro badan oo iska warqabno, aan isla xiriirno arrimahaasna runtii laftikooda ku foogan, dadaalo badana ka geysta. culimmada waaweyn way jiraan rag hawsha ku baraarugsan, laakiinse ma badna. hadda waxaan oran karaaba dhalinyaradu juhdi ay bixinaysaaba ka badanba ragga culimmada waaweyn. dhalinyaro badan oo maadigna bartay, diiniga bartay, dhinac kastaba tusaaleyaasha keenaya baa hadda la helaya. laakiin culimmadii waaweyneed intooda badnayd mawaadiic diinta bas in la daraaseeyey iyo dadka in loo wacdiyo, loo khudbeeyey iyo qaabka qisasiga iyo axkaamtii la akhriyay iyo laftirkooda dadaal la kala wadaan. laakiin hawshaan waxaad moodaa inaysan ma laga yaabaa inaysan u aragba khatar bulshada kusoo socota, waxaan in wax weyn inuu yahay maysan u aragba. horta way jiraan rag ka hadla oo runtii weli waxay u badan yihiin ragga fahansan filinkan oo ka hadla barnaamijkan inuu jiro. ragga reer galbeedka ku nool, culamada galbeedka ku nool way fahansan yihiin khatartan, laakiin Soomaaliya ragga ku nool waxaa laga yaabaa waxay u badan tahay intooda badan waxaan aad ugu baraarugsanaa. laakiin culamada galbeedka joogta oo Soomaalida ah in badan baynu ka maqalnaa iyaga xataa ihsaa'iyaad xataa sheegaya dhahaya intaasoo ahaa nisba intaas hadda intaas u tegay intaa iyo intaa. way jiraan rag noocaas. waxaanu galaynaa asbaabihii waynu sheegnay, muqadamaynu u samaynay, asbaabihii waynu sheegnay, Soomaaliya innaga waaqiceenna qaabka uga jiro dhexdeenna. sidee baa looga horta sidee baa loo daaweyn karaa? okay, marka aynu ka hadlayno daaweynta horta waxay noqonaysaa arrin lakabyo badan iska leh ama tiirar badan iska leh. tiir kastana waa muhiim inuu dowrkiisa qaato. kow, khitaabka diiniga ah waa in uu ku baraarugaa arrinta noocan. dadka macnaha dadka la hadla culummada ah oo mataqaanaa isheeg manasaadka tawaasul ijtimaaciga baraha bulshada isticmaala, hawshaan horta inay xisaabtooda ku darsadaan inay jirto, ayna markaas ku howlgalaan say u samayn lahaayeen albinaa alfikri
waalcaqadi waalcilmi. dadka in la dhiso fikirkooda la dhiso, mawaadiic ku saabsan dadka fikirkooda dhisitaankiisa, mawaadiic ku saabsan caqliyan dadka in loo koriyo, wacyiga dadka in la koriyo, shubahaadkii nimanka ay soo jeedinayeen in laga jawaababa. already waxaa la dhaho taxsiin, qofka in la ilaaliyo, qofka muslimka ah, ama wiqaayo intaysan waxaan soo gaarin, shubahaadkaan soo gaarinin, dadka in wiqaayo loo sameeyo ama manaaco waxay dhahaan, wax uu waxaan iskaga difaaci karo. taas waa qodob. waxaynu ka rabnaa dadka khitaabka diiniga ah ku hawl leh oo culummada ah hawshaas horta inay galaan, dhisitaanka fekerka iyo caqliga dhalinyarada. oo mawaadiicdan wacdiga iyo waxaas iyo hawlahaasna ay wadaan dhib ma leh, waa loo baahan yahay. qofka bani aadamka qaab caatifadiisana in la buuxiyo oo caatifi ahaan oo ruuxdiisa la koriyana waa loo baahan yahay, caqligiisa in la koriyana waa loo baahan yahay. marka jaanibka caqliga ahna in awoodda la saaro oo culumtii khusaysana dadka loo akhriyo, sida cilmu kalaamka iyo mantiqa wax la midka ah. taas waa qodob. tan labaad waxay tahay mu'asasaadka diiniga ah oo rasmiga dowladda markaynu ka hadlayno, sida wasaaradda awqaafta oo kale iyo mu'asasaadka kale oo diinta ku tacalluqa, laftirkooda inay door ka qaataan arrinta noocaas oo ay sameeyaan dadka diinta dadka bara in ta'hiil loo sameeyo, la dhiso, inay soo saaraan hadda azhar oo kale iyo mu'asasaadka wasaaradda awqaaf oo kale maxay sameeyaan sanad kastaba macradka inaad tagtaan umaleynaya, macrad alkitaab lilqaahira waa tagtaa soo maha, si fiican kutub bay soo bandhigaan ay kaga hadlayaan axdaasta hadda jirta, afkaaraha cusub oo faafaya ay kaga hadlayaan bay soo bandhigaan, iyagoo ka jawaabaya, xululna u raadinaya, xalna u raadinaya. marka mu'asasaadka rasmiga ah ma arkaysa Soomaaliya wasaaradda awqaaf baa kitaab soo saartay, ma arkaysa midda kale ma lihin daarul iftaa iyo waxaas ma lihin, taas ma lihin. laakiin wasaaradda awqaaf oo kale artiskeedu ala aqal haddii dadka wax u qabanaynin ha isku daydo kutub billa ah ama sanadla ah oo afkaaraha hadda jira iyo shubahaadka ay kaga jawaabaysa inay soo saarto. shaqada ugu adag ee qabato wasaaradda awqaaf Soomaaliya waa dadka xaj kala geeyo bas, shaqo kale ma qabataa. shaqo weyn baa sugaysa maadaama diintii iyo awqaafta iyadu mas-uul ka tahay. masaajidda aymadii joogtay in tadriib loo sameeyo oo masaajid qofkii wadaadkii uu noqdo wadaad waaqica la socdo. yani wadaad waxaa arkaysaa khudbooyin waxay akhrinayaan afaan yani wax aan waaqac la socon shughul ku lahayn. qofkan khudbadu akhrinaya waa inay noqdo khudbad waaqici ah, waaqic la socota, wadaadku yahay wadaad wuxuu oran jiray sheekh Xasan Bashiir, qofka daaciga waa inuu noqdaa يعني مرتبطا بأصله ومتصلا بعصره. قف أصل كيسو دينتنا كحرا يا عالم كيسنا لصعبة واقعي قف وإنه نقضه. مركز الدعاء ده وحاجة سرا أزرق هذا وحاجة قبطات تدريب الدعاء بيسميسا وزارة الأوقاف وقال طب بيسوق هذا لهيد أزرق كين لهيد ولا تدريب لها دتك ولا تخبر لها خطبوين كي واقعيين بالغير لها يعني مواضيع مستجدات كمركز سرا in la falgeli karaan laftirkooda ku soo saari karaan wax soo saari karaan. hadii ba azhar laftirkeeda fari ku godan tahay markii Soomaaliya jooga qabar azharta adu aad leedahay waxbay tababaraysaa casharray bixinaysaa. hadii Soomaaliya markii la joogo iyada laftirkeeda far ku godan tahay way jirtaa oo yani hadda firqa islaamiga ay way jiraan dad qibladoodu tahay dhanka Sacuudiga oo dhankan azhar iyo hagaas ayagu aan wax weyn ihtimaam weyn siin. ayaga laftirkooda hadii ay jiraan meelo kale qoloyinkaas hadba meesha cid baa qabatay moqt anagu cidna hal fogay ma dhahayno, hadba meesha cid baa qabatay, cidda meesha haysata hadii qoloyinkan azhar ku xiran haday haystaana war dadkeena soo kaxayso xagan ku tababaro dad mutaqafiin caalamka la socda ha noqdaan. kuwan kale haday meesha la wareegaan adinkuna meelo fiican oo mu'asasad iyo maraakiis iyo haday jiraan dadka tadriib hadda way jiraan Sacuudiga oo kale rag dhalinyaro soo kacayo oo dhankaas fikirkaas ah. waxaa ka mid ah ninka Axmed Sayid oo kale Cabdalla Ujayri raggaas way jiraan xoogaa wax fahansan waaqic la socda way jiraan. Masar laftirkeeda qabar haysa azhar dadaalka ay ku jirto Soomaa waa ogtahay mawduuc tafaasiil ma galayno laakiin xilliyadan dambe kacdoonka kadib azhar booska ay Masar u taagan tahay iyo dadaalka ay ku jirto waxyaabaha qaar inay ilaaliso waad ka warhaysaa umaleynaya. yes aad iyo okay maraakiistan soo baxay ugu dambeeyay markaas takwiin
ها intaysan markaas asaasin iyagoo ashkhaas ah dadaalkay wadeen doodaha ay soo bandhigeen iyo Azhar qaabkay ugu jawaabtay ها sidaan ognahay Masar ilaa waxaan u maleynayaa 40 sano u dambeeyay doodaha adag baa la soo maray wadaadada iyo dadkan calmaaniyiinta carabta ama liberaaliyiinta ama xataa mararka qaarkood mulxidiinta doodahaas waxyaalo fara badan baa ka dhashay miraheeda waa la hayaa qaarkood marka Azhar qayb weyn bay ka ahayd inay wax badan difaacdo in qadayada fara badan oo maantay نوعاً تفاصيل هذا الكلام موضوع أنا بسمعنا أوكي أرتب موضوع هو مهم وزارة أوقاف توقع دور كذا إني قاعدته وبورك إسكتشفته وحاجة كلية شكل ويسوي كويك عنه إن دجال عريض الأولى اللي سوق هذه وفكري بالشديد الربع فكر كيودي اللي بدله أرنت أصلا يدور كقاطان قاب هالنقطة مرئة أرجع مقالة سوشيال ميديا نكاس يعني صفحات قصة يستان وما وزارة أوقاف صفحات من كل هذا أولادهم يعني أي دولة بحي قاسمه ما تصفحات بليه وتوا واحد طبيعي أوكي إما لا إن تيك توك عليهم بقول يعني إني تنشيط في عن سمعيان أنت سوقله وضدك إله هذا الآن إن شاء الله هذا الآن وقرآن منشورات بحوث وإحنا عسوقله دراسات أرمها قصابسا وحكستو مركز عصوب أفكار تعصى ماشي مريسو إن لا صعوبة شبهات كان يردنا لقيت شباب تاسوق والخير سؤالها فضوط قبا دورك سؤال هذا فضوط قبا السيفت اللي له تاغين كبر سغ وخلد وين يعني horta waxa jira marxalado qofku marxalada muraahaqada qofku mesela intuu shaqeyn gaarin oo kale su'aalahan jiraalka maaragtay wujuudiga uu isweydiiyo qofku marka qofka hadii la sii caburiyo la dhaho maxaad iyo waa mamnuuc su'aashaas rabbi baa rabbi weydiin kara oo kale rag baa laga sheegay hada su'aalu rabbi lirabb su'aal bani aadam weydiin kara ma aha rabbi baa rabbi weydiin kara waxa dadka in lagu dhawo khalad waxaa la rabaa qofka si wanaagsan in loo qanciyo su'aashiisana qaab cilmiyeysan inta loo taxliiliyo dhinac kasta wax laga tusiyo qofka soo qanacsan marka tagaya waxaan wax weyn ma ah waa shuqlada qofku qacaysa weey in la damiyay u baahan tahay marka in la siishado marto taas waa qodob dhankaas marka waa wasaaradda awqaafka iyo muassasaadka rasmiga ah way ku saabsan tahay arrintaas waxaa kaloo loo baahan yahay iclaamka laftiisa inuu qaybsi qaato iclaamku maadaama dal islaama aynu nahay مواضيع بناءة واحد السيئة بولشة وحكو سكر إنية هذا ما شاء الله يعني قري بودكاست يوكله هاد بنقوم هذا علينا قاب كان قروح بدن ضد تسوي فريسيسو ورئيسته بولشة يعني فكر كذا إلا وحيد ومرك على جحله لأن السياسة دي الإندين انعكست وحلو بعيه وأنا وحكو ضي شمال عندي أرنت أنا قال مرك أبغاني علام كان قالوا ما أنت عندي حوالي الدليل حوالي قرحي سلبيات بس بيكالن أنت بدن وكان وحد إيجابيات كلا جماعة هذا وحن هذا وفرح سنة ولا أمانة يعني لأن يرد الصوماليات وأيضا بالوضع ذلك قول حيس إني سوق بيهن واحد إيجابي ولا كيو تسوية إعلامك مركن لوجا فايز لأنك بوزيتيف هي الله روا وأفكار تنفتر كذا هي الولد دجالمو للسوء السمو ضد متخصصين مواضيع داس وله ما تقعنا خلفيات وله علم وله أنا أرمها نعص على كهل الله فلانقيان شبهات كمركات رأي كجوابان إعلام كنا إنه قيبتي ساقاته ومهم waxay kaloo ayaduna muhiim ah dawladdu marka laga tago wasaaradda awqaafta arintan inay qayb ayaduna ka qaadato dawladdu qaybta ka qaadan kartaa maxay faqriga iyo jahliga inay la dagaalanto yani faqrigu waxyaalaha ugu badan oo gaalnimada iyo ilxaadka iyo wax kastoo xunba faqri bay ka dhashaa soo garanaysa bulshada hadday faqiir noqoto cid kasta ka faa'iideysan karta أنا هذا مواقف بدن بقى رمتي كرنا حقيقة شخصيا دولتها قيبة كم بتحوا بدون ذكر الأسماء ضد الله تعاملي وسك ضعفائها دولتها إسلام كم ده أنا مركو قلها هي أدي وحنا عصر الشقيني دوا دريمي زادت كاس يعني وحوا هين إن ديارو يهين إن سيستان دين تو إحدى وين هذا فعلا ده النوع عاصو وحيرا وحوا هين بثمن قليل دينتو دي مبدأ السيستم مركو ضمن وحول راسخ ما هين باهنا ويتبت باهي سو مركو خلاص marka dadka baahida in laga dagaalamo dawladdu manhajka eeda dawladda gacanta ku haysa
manaahijtii in lagu daro culumtii caqliyaadka ahayd dadka caqligooda iyo fikirkooda dhisaysay in lagu daro oo dowladda arrinta lafteedu qaybteeda ay ka qaato wasaaradda waxbarashada gaar ahaan wasaaradda waxbarashada laftirkeedu kaliya maahan arday minxa in la siiyay iyo in manhaj waxay bulshada boos weyn bay u taagantahay jiilkii soo kacay oo dhan ayaday hoos imaanayaan waxa iyadu ay qorto baa dadkan maskaxdooda galaya sooma waxa macnalo dadkan anfaco diintoodana u badbaadiya aakhiradoodan u badbaadiya in dadka ay mataqaanaa lagu soo daro manaahijtii baa loo baahan yahay oo maadooyinka markaas muhiimka ah sida culumtanka cilmi kalaamka oo kale cilmi mantiq oo kale dadka caqligooda dhisay in lagu soo daro iyo maadooyinka kale oo tirkooda wadaniyadii oo kale wadan jacaylka wadankii xataa waad arkaysa hadda waxyaalaha ka jira Soomaalidu dadka wadankooda jecel maaha yani wasaaradda waxbarashadu waxaa saaran mas-uuliyad aad u culus ayaduna hawshaa inay qaybteeda ka qaadataa la rabaa dowladduna la dagaalanka faqriga iyo jahliga inay qaybteeda ka qaadato marka intaasoo iskaashanaysa intaas hadday iskaashato waxay ila tahay arrimaha noocaas iyo wax kasii weynba runtii waa la duweyn karaa calmaaniyadda iyo ilxaadku wax xiriir oo leeyihiin ma jirta horta cilmaaniyadda iyo ilxaadku waxaynu oran karnaa xiriir way leeyihiin sababta waxay tahay hadda markaynu dib u noqono casrigii la oran jiray casr tanwiir enlightenmentiga Yurub markii ay dhaheen diinta iyo hala kala saaro dowladda diintan wax ku ekaato masaajidka iyo meelaha cibaadada ku ekaato markii ay saa dhaheen kadib waxaa ku xigtay in arrintii sii tatawurtay oo ay dhaheen diinta nolosha dhan laga saaro oo ay qaateen waxa la dhaho al-cilmaaniya shaamila yani nolosha waxaynu diin uga baahanahay ma jirto marka tatawurkaasa wuxuu keenay in diintii meesha laga saaro oo mataqaanaa wax looga baahan yahay aysan jirin marka hada huwa ilxaad kaasna waa ilxaad weeye yani diinta haddii carrada dhan laga saaro oo la dhaho diinta nolosheena ijtimaacigaana bulsheedna uguma baahnin tan dhaqaalana uguma baahnin tii siyaasadeedna uguma baahnin haddii la dhaho dee maxaa harayba khalaas midda kale markay qolooyinka hadda cilmaaniyadda soo waarida oo mataqaana caalamka islaamka keena ayagu waxbay yara qurqurxiyaan waxay dhahaan annagu cilmaaniyad diinta iyo dowladda bas in la kala saaraan rabnaa dadku xor ay u noqdaan cibaadadooda waxooda masaajidkooda ay joogaan laakiinse diinta kuma nihin cadow kuma nihin kaliya waxaan leenahay systemka iyo dowladnimada iyo waxaas laga dhex saaraan leenahay markay saas leeyihiin waxay ka duulayaan laba arrimood arrinta koowaad waxay tahay waxay u arkaan diintu inay tahay wax duquus iyo cibaadaad bas ah inay tahay cibaadaad iyo duquus bas inay tahay u arkaan dee diintan islaamka markaynu aragnana diintu wax kasta way shamlis waxaysan ka hadlin male ma faradnaa fi lkitaabi min shay walow dee kitaabkaas kitaabkii culamada qaybo kamid ay ku fasiraan lawx maxfuudka laakiinse diintu si guud iqtisaad siyaasad wax kastaba mabaadi bay ka dejisa oo dadku la raba inay ku socdaan mabda waa xayndaab guud oo saa inoogu hareeraysan oo la rabo dhexdiisa aan si xorriyada ugu socon karno laakiinse aynu tallaabi karin siyaasaddii mabaadi gaaraa loo dejiyey cadaalad in lagu dhaqmo inaan cidna la dulminin fasaadka in laga fogaado mataqaanaa cidda u qalanta oo mataqaanaa dadku inay qofka aslaxa ugu wanaagsan inay meesha keensadaan mabaadi guud bay leedahay oo akhlaaq shuuradii baa la baneeyey shuuradii baa la baneeyey mabda'i shuurada mabda almusaawa mabda alcadaa mabaadidaas oo dhan bay diinta islaamka ku dejisay marka haddaan dhahno mabaadidii diinta islaamka ku dejiso akhlaaqiga oo dhan meesha aan ka saarno oo mataqaanaa annagu aansaan doono yeelno taas waa xaalad adag runtii ma garata taas marka waa qodob diinta islaamka wax kasta mabaadi u jira iqtisaadka mabaadi leeyihiin mabaadi bay u dejisay dhaqaalihii baan ka wadaa siyaasaddii mabaadi bay u dejisay noloshii guud ahaan mabaadi bay iska leedahay u dejisay marka mabaadida islaamka haddii la dhaho nolosha laga saaro that means waxay tahay waxaa doona aan samayno sidii bahaynta u noolaano wey taas waa qodob marka marnaba islaamku kama
uma baahan karo ama waxaan oran karnaa marnaba bulsho muslim ahay uma baahan karto nidaam aan ahayn nidaamka islaamiga ah. absolutely yani islaamku asaga isku filan yani islaamku mideeda kale wuxuu ina farayaa bini aadamkii caqligiisa wuu fasaxay xuduud markaas aan ka hor imaanaynin thawaabidda yani waxyaalaha thawaabidda oo asaasiga ah waxaan ka hor imaanayn qofku inuu ku fekero dadku mataqaanaa systemka markaas ayagu ay u arkaan inuu soconayo inay la yimaadaan. hadda waad aragta xilligii dowladdii islaamka khilaafay marka hore ahayd sooma khulafaa rashidiin marka dibna maxay noqotay boqortooyo mulki bay noqotay sooma sistamyada hadba way isbedelayaan sooma casrigu hadba waa mutaqayir waa isbedelaya sooma marka dadku waxay rabaan hadba nidaam markaa u suubada casrigaas ay nool yihiin. diintu marka uma diidana in ay la yimaadaan nidaam casrigoodaas u suubada bishartihe inaysan mabaadidii guud oo markaas siyaasadda mabaadidii guud islaamka uu dejiyo siyaasadda uu dejiyey inaysan ka baxeen. soo ma garanaysa marka ayagu waxay ku doodaan waxay dhahaan diintu waxaan u leenahay laga saara siyaasadda diintu waa thawaabid way sugan tahay isma babadisho taana waa beentood wey. diintu thawaabidna way leedahay mutaqayiraadna way leedahay wax suganna waa jiraan wax isbedelna waa jiraan. waxa sugan waxa akhlaaqi mabaadida akhlaaqda waa suganta caqaa'idku waa sugan yihiin waxyaalaha furuuda ilaahay far la yeelay oo mataqaanaa sida mataqaanaa cibaadaadkii oo kale wax sugan wey. soo ma garanaysa waxyaala sugan way jiraan laakiinse waxyaala mutaqayira jira diinta islaamka weliba inta mutaqayirka ah ya baa ka badan inta aan mutaqayirka inta isbedelaysa baa 100 jeer ka badan inta aan isbedelayn. inta aan isbedelayn waa wax kooban inta isbedelaysa way badanta mucaamalaadoo dhan way isbedelayaan mucaamalaadoo dhan dadku hadba casriga ay joogaan waqtiga ay joogaan isu bedelaya. su-aal yar baan isleeyahay dadka daawanaya qof ka mid a maskaxdiisa ku jiri kartaa waan jeclahay inaan ku weydiiyo qofku sideedaba muxuu diin uga baahan yahay? horta markaynu ka hadlayno caalamkan waxa yaala ama afkaaraha caalamka yaala waa dad ahlu diin haysta dad cilmiga u aaminsan inuu booskii diinta galay iyo dad falaasifa ah oo ayagu kaga dhow kuwaan ahlu diinka kaga dhow waa saddexda qaybood. diintu marka labadan waxaysan ka jawaabin bay ka jawaabaysaa. falsafadda oo kale falsafaddu waxay la hadashaa caqliga qofka bini aadanka bas ruuxdiisa iyo caatifadiisa iyo qofku baahi wuxuu leeyahay nafayd buu leeyahay jacayl farxad murugo waxyaalahaas oo dhan waxaa la dhahaa cawaatif baa la dhahaa ama mashaacir mashaacirta falsafadda lama hadasho shuqul kuma leh maxaa ka maqan mashaacirta baa ka maqan qofkii qayb dhan oo ka mid ah falsafada ka maqan marka falsafad boos diin ma gelin karno leanno qayb dhan baa ka maqan xagga iga dhig falsafadda. waxaan u imaanaynaa cilmigii cilmigu ma leeyahay mashaacir ma leeyahay dareen ma leeyahay cilmigu wax ma dareemi karaa dareenka qofka ma la hadli karaa caatifadiisa ma la hadli karaa cilmigu dareen ma leh waa cilmiga sayniska hadda jiraan ka hadlaynaa saynis baan ka hadlaynaa waa kow caqliga qofka bani aadamka ma la hadlaya mararka qaar waxaa dhacda inay dhahaanba caqliga aan ilqayno ayagoo caqliga uma arkaanba il aqooneed uma arkaanba waxay leeyihiin itusoo itaabsiye bay inta badan awoodda saaraan waa xisiyiin xawaastaas dareemayaashaas bes bay iyagu awoodda saaraan maxay meesha ka saareen caqligii axaasiistii dareemayaashii qofka gudaha ahaa wixii oo dhan meesha wax ka saareen asagoo marka falsafaddu kasii darnaday marka waxaan caadifadeedana raqabaadkayga iyo waxyaalaha caadifiga oo nafteyda aan buuxin karin caqligana wax weyn ahmiyad weyn ba aan siinaynba ya oo caqligu qof bani aadan qayb ka mid ah boos ma ii geli karaa marka diin ma ii geli karaa no diintu caqligana waa la hadlaysaa caatifadina waa la hadlaysaa labadaba waana labada qofku uu ka kooban yahay jirka marka laga tago caqli iyo caatifad caqligana way ii buuxinaysaa oo jawaabo caqliga maangal ah oo caqligayga mataqaana anfacaya isiinaysaa
وسؤالها ugu muhiimsan ah jiraalka su'aalihiisa biga jawaabisa xagee ka nimid yaa hortana abuuray maxaana loo abuuray maxaan adduunkan u joognaa sababtan u joogna maxay tahay xagee ku dambayn waxyaalo waaweyn oo saynis walaa falsafad walaa waxaasoo dhan iska jawaabi karin bay ka jawaabaysaa diinta islaam diinta ku jawaabaysaa qofku waana su-aalaha ugu badan oo qofka xataa dadka qaybo ka mid ay ku waashaanba war maxaan ahay yaa keenay adduunkan yaa adduunkan i keenay maxaa la ii keenay waxaan cadaab tahay oo balaada ay wareerka buuqa maxaa la ii keenay maxaan ka qaban xagee ku dambayn doonaa yaa iga dambe qofkii waxaa laga yaabaa su-aalahaas inay wereeriyaanba waalaan isagoo dhanba diintu su-aalaha bay si sahlan uga jawaabaysa marka su-aalihii jiraalka o dhan haddii lagaga jawaabayo waliba si sahlan lagaga jawaabay mantiqa caqliga la caadifadaada iyo raqbadaada in laguu buuxinayo ya ma u baahan tahay mise uma baahnid waad u baahan tahay marka qofka diintu waa u baahan yahay waa lagama maarmaan weeye marka aynu ka hadlayno marka wujuud jiraalka diimaha yani diin iyo bini aadan yaa horreeyey waa su-aala la isweydiiyo bini aadanka iyo diinta horta yaa horreeyey taarikhda waa la bara bidaa'igii yani insaankii bidaa'iga ahaa baa loo tegay taarikhdiisa loo tegay oo la baara diin buu haystaa dadka timaarta iyo ku noolaa miraha ku noolaa dadka gudaadka geli cid aan diin haysan ma jirto ilaa culamada qaybo kamid ay gaarsiiyaan dhahan waaba fitriba waa wax qofka bini aadanka ku abuuranba inuu raadiyo war xagee ka imid xagee u socdaa ma garat su-aalaha noocaasa marka dadkii waxay keentay inay diima samaystaan diimaha laftooda marka laga hadlayo waxay dhahaan ma diimaha ilaahyada badan aaminsan baa horreeyey mise diinta hal ilaah aaminsan baa horreysay ragga mu'arikiinta ah oo taariikhii hore oo bidaa'iga afriqiya marka la afrikada adqaal afriqiya marka la galo qabiilo waxaa loo tagaya bidaa'iya australia oo kale qabiilaa loo tagaya bidaa'iya waxaa la soo helay dad ilaah waaxida bas aaminsan waana bidaa'iya dadki waxay ka soo hareen qadiimka ah marka waxay dhaheen ilaaha waaxidka ah dadka aaminsan baa ka horreeyey dadka aaminsanee ilaahyada mutacadidka ah oo waxaan dib bay ka yimaadeen waa inxiraaf ku yimid diimihii hore hadda diimaha lasoo qaato oo kale waxaa ka mid oo tawxiidka marka hore aaminsaneen zaradishtiya baa ka mid zaradisht dadka qaybo ka mid waxay dhahay nebi buuba ahaa bay dhaha oo in badan oo tacaaliintii zaradishta iyo islaamka haddaad isku fiirisa in badan oo ka mid way isku egyihiin leanna maxaa yeelay islaamku waaxid wey ninkaas nin nebi u ahaa bay dhahan waxaa ka mid ah ragga nebiga ku sheegay ibn xazm baa ka mid ah ibn xazm al-Dhahiri wuxuu sheegay inuu ninkaas nebi ahaaba diin tawxiid ku dhisan bay ahayd diimahan kale hinduuga haddaa geshid waxa say u socoto ilaahadan waa baabaa hal ilaah baa loo tagay bas soo garanaysa marka ilaaha waaxidka ah baa marka hore sheekh buu koonkan ku bilowday oo dadku inay aaminaan ilaah waaxida oo dee koonkan abuuray oo alla xaqa inaguna aaminsanahay allahaas marka ambiyu soo diray rasuul buu soo diray dadka uu soo diray dadka waxaa weeye risaaladiisa gaarsiisa kadibna ambiyadii waa dad badan baa ka hor yimid waa lagu kacay kadib waxaa yimid diintii ay la yimaadeen risaale la yimid inxiraaf inuu ku yimaado oo qaybana ay noqdaan qaybo oo ilaahya badan caabuda qaybana dee hal ilaah igu caabudana waxyaala kaloo khalada sameynaya wax noocaas oo kale marka diintu yacni xataa waxaa laga dhahay insaanka bidaa'iga marka laga tago maxaa la oran jiray homo sapienski marka loo tago ilaa maxay oran jireen yani lama soo helayo koonka dad soo maray oo bilaadiina lama soo helayo diintu waa xasilooni marka waa xasilooni diintu waa wax qofku ku nagaadayo waa wax qofku ku degayo oo tumaanino qofka siinaya dejinaya mankiisa adduunkana uu waxa weeye xasilooni ku helayo aakhirana uu ku rajaynayo inuu xasilooni ku helo aad iyo aad tusaalehaan soo qaadanaya waxaa laga yaabaa in la helo qof wax un caabuda wuxuu doona ha ahaado laakiin laga yaaba inuu ka xasilooni badan yahay ama ka yara degan yahay qof kaloo bilaa diin ah isagoo waxba aaminsanayn buuqa ku furan iyo maskaxdiisa islaamka inuu sii daadegno horta diinta islaamku waa diintii ama diintan furqaan haddaan dhahno islaam guud ahaan waxay isku noqonayaan moogta diimihii samawiga oo dhanba waa islaam wey in addiina cinda allahi islaam
laakiin diinta nabi maxamed loo soo diray diinta furqaana nabi maxamed loo soo dhiibay waxay ahayd risaaladii khaatimka ahayd oo risaalooyinkii hore oo dhan ba khatintay. waxyaalaha marka imtiyaazaadka ay diimihii hore kaga duwan tahay waxaa ka mid ah diimihii hore ilaahay markuu soo dirayo nebi soo dirayo ama rasuul aan dhaho rasuul soo dirayo waxaa la soo raacin jiray mucjiso xisi ah muuqata oo tangible la taaban karo oo cid ka hor imaan karta aysan jirin ijaaz dadka gelinaysa. hadda nabi laahi ciise ama waxaan ka hadlayaa ii sheegay muuse iyo ciise oo kale. nabi muuse waad garanaysaa ushi maska noqonaysa saxarada intay yimaadeen iyo waxooda sixirkooda la yimaadeen buu ushii saa u tuurasay wixii oo dhanba faidaa yatalaqafu maa yaafikuun. ya marka mucjizo waxaa ahayd xisi ah oo dadka ku samaynaysa iskaat aamusin wax hadli kara malaysa dhibi wey caadi. laakiinse dhibka jiraa waxay tahay nebigii xilligaa joogay hadduu tago oo mucjizada la imaanayay dadkii ka dambeeyey oo nebigaas fatradiisii ama jiilashii ka dambeeyey asaga maxaa lagu qancinaya? ilan ku hore itusoo itaabsi baa lagu qanciya sooma. haddii kuwan lagu dhaho nebi muuse ul buu mataqaanaa iska lahaayo ushaasa mas noqon jirtay oo mataqaanaa ii sheeg gacantiisa markuu xagga geliyo iyadoo waxay iftiimayso soo saari jirtay walaqad aatayna muusa 9 aayaatin 9 aayadood baa la siiyey. marka de wuxuu leeyahay waa taariikh buu leeyahay see ku rumaysan karaan wax taariikh oo tagay weeye. anigu waxaan itusoo itaabsiyay adduunka hadda wuxuu iska noqday ma ogtahay itusoo itaabsiyay iska noqday ma ogtahay. caqabada u weyn marka diimaha soo wajahda waxay ahayd nebigu markuu dhinto dadka ka dambeeyey wax yani ay ku qanci karaan oo diinta ku saaysan karaan oo xoogan ma jirin. laakiin nabi maxamed ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey waxaa la dhaho almucjiza alkhaalida mucjizo weligeed jiraysa oo casri kasta iyo zaman kastana la socon karta alaa wahiya alqur'aan. qur-aankan kariimkaa baa la siiyey caqli kasta oo bani aadan leeyahay oo la hadlaya caadifadiisana waa la hadlaya su-aalaha jiraalkana waa ka jawaabaya taxaddi buu galaya yaa ila loolamin karu leeyahay carar wakaasaya wax keensada ma garat ilaa hadduu taaganya ilaa hadda qofka rabaa inuu qanco qanca. hadda gaalada waad aragtay markii kitaab quraan loo geeyo markaas la tarjumay oo kale in badan baa ku islaatay markay arkaan hadalkan hadal bani aadan ma ahaydha balaaqada waxaa ku jiray wuxuu ka hadlay macluumaadka yani manhajiyada yani waxaan wax bani aadan ku hadli kara maaha wax bani aadan ka weyn quwa ka weyn baa waxaan keentay bay leeyihin. midda kale xataa waxyaalaha mabaadida culumta nadariyaadka waxaa ku jira icjaaska cilmiga ah icjaaz cilmi ah luqawi mataqaana icjaaz cadadi waxay dhahaan tir ahaan baa icjaaz lagugu samaynaya luqa ahaan baa icjaaz lagugu samaynaya mataqaan asagoo dhan baa wuxuu yahay dadka cajis gelinaya ilaa haddana wuu ku hortaagaya. marka mucjizadaas khaalidada ah oo weligeed jirtay jiri doontana bay diinta islaamku ay kaga duwan tahay diimii hore oo cid kastoo timaadana lagu qancin karo loo odhan karo waa kana soo ma garanaysa. waana risaaladii khaatimada ee diimaha u dambeysay waxyaalihii markaas aysan ka jawaabin qolooyinka hore oo dhan ama diimihii hore aysan ka jawaabinna jawaab u keentay waxaa noqota qaybka waxa ku saabsanaa ama waxa ku saabsanaa dhanka tashriica ku saabsanaa xagga diinteena islaamka waxyaalaha kale ay ku fiican tahay waxaa ka mid oo diimaha kale kaga duwan tahay rafcu lxaraj ummadda dhibki baa laga dulqaada. yani diimihii hore hadaad fiilaysid dadka mashaqo badan baa saaran jirtay qofka haddii injaaza ku dhacdo meesha inuu jaro adig mar inta qaadid baad iska dhaqaysaa soo yani xaraj badan baa saaranaa ataysiir way fududa walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fahamkiisa iyo akhriskiisu intaba way fudud yihiin waa risaalada fudud weeye oo haddana dhumucda leh oo macnaha ku jira iyo cilmiga ku jira cid kastaba ay la cajabtay. marka diinta islaamku waxyaalahaas ay kaga duwan tahay diimaha hore waana diinta khaatimka ahayd wey maadaama dee ummaddii u dambaysa anna waa nahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas macnaa ummadda ugu khayr badnaydna waa nahay ummaddii ugu dambaysana waa nahay wax naga dambeeya ma jira. marka diinta islaamku saasay kaga duwan tahay diimihii hore
كل waxyaalo badan yani waan sii wadi karnaa laakiin intaasaan ku qabsanayn. أستاذ أدبا ما صنتهي أستاذ محمد عبد القادر ويش أو مانتي موضوع أدو قيمة بدن سيقروح بدن إنه سوق بيه أنا إيش قدر أنت صحت يعني قرص صهر فريستو وأنا هل سؤالي أما سؤال نسكت كويدي إن كستو موضوعا عن غيما إن كجابي سؤال بدن كويدين وحن داود ياشا إيو أما نجست ياشا بكره لي قرينا هدي سؤاله مسكح هذا كجوحي أنا ويدين أستاذ محمد عبد القادر وأن كره لي قرينا يا أنا جاي لو شيء جاي علمية رديدة أي صوبوا موضوع أنا قلب حباه يعني حلقات أنت قبل عرن وقدادير وحرجينا يا أنتي عن سوق بيني إن أنا قلت مد أي دتكو وحبضا كدهدا قوم فربضا ناي كفهمان مشكلة دن ما أنت يتصو بندكتي يدنا علوم ذا يعني هذا أذيقو قلاعي ما أنت طبعا رسالة قد بني سدا عباتها تعاد يعني هذا وكمتهاي إن يجونا هي الإسكسارة نوعي أقونت ذا أودي ذا يشان أي رجينا يا وأنا ضايلسن قريب بودكاست محمر وبديارو يحيي إنه برشة وحنا فعله أو أي أنا سديه كراه الدنيا آخر ضبا كوسيجي معين أيان رجينا يعني وسوق بينه وهي خلطة نقد عينا أنا ركع هذا ربنا وحنو وهيجنا يا مديارنا هي إنانو سوق بينه إنانو سو أنو هوي إذن كان من نعزنا ضد برشة هل دور كذا وقنت أنا كقريب قادم كذا أستاذ محمد في أدوم ما صنتهي عندي سؤال قبته أو أستاذ كهذا كذب سؤال ويديني سهل وحنو إذن رابنا إيميل كيسا إيو برتا وفيسبوك وليه أدوم ما صنتين السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.